هلو السلام عليكم. أدلادنتين سوما. أوكي. رمضان مبارك كل جين مالك استوي جوكتا وأدن سلام يا سلام تبدأ أنا سيدات بريحان بأركيسين مقالك ومقالك أجه الرأي يعني شيء تفعصب aan rabo gabdhaha inaan la wadaago Soomaaliyeed not raga gabdhaha bas strictly hooyooyinka ah ama gabdhaha yaryar ama hooyooyinka waaweynaada ah oo aan ugu sheego qaab aan tijaabiyay oo aan miisaanka iskaga dhimay marka sheekada waa badnaan doontaa marba in baa idin sheegi doonaa laakiin qaybta waxaan rabaa inaan kaga hadlo أن فرحة كده حيسا ميسان كنا أسكدنتو حريرك كده حي ميسان كنا أسكدنتو إيه أنا فرح سناتو وحا أنك هتلاقي وحربنا دقنين كهرماريو أنا جمعيه قفلين عن نفاقة كنت قشسي منائه قف تببر كلا أو لنع كلا أو like جيم كأو كلا إيه قبا لكن وحنا هاي قف ويا أرجع مالين تياريت إلا مالين تيوينيدنا هرب لهايت جركدو ميسان لها كان السوجة دقيس جينس كودا أما سنجودو ويا هاي أنا برور بدن يشان because metabolism كجركة أما دعان كجركة لا يرى metabolism أيا وحكو حيرانيا هاي إن cuntada aad cunto ha yaraata ama ha badnaatee jirkaaga guba dhacankaas ayaa guba dadka qaarna dhacankaas ayaa jirkooda ku yar waxaan ka soo jeedaa marka qoys metabolismkooda uu hooseeyo taas la ajligeed geneskoda uu yahay dad wada cayilan qofkii ay garanaya aniga reer weheliye caddo ahaan ay garanayana wuu fahmayaa walaalaha iyo qoyskayga aniga aan ka soo jeedo inta ay la eegyihiin maadaama sidaas ay tahay haddana waxaan ahay hooyo shandal ah oo 5 caruur dhashay caruurteedu wada koreen hadda ha wada koraanee gabadhu markay ilmo dhasho sideedaba da'da hore markay dhasho sidii hore oo gabarnimadeeda ma ahaana da'da labaad markay dhasho waa kasii daran tahay da'da saddexaad markay dhasho waa kasii daran tahay waa dareemi kartaa marka gabdho badan oo aniga ilmaha inta aan dhalay ka badan dhalayaa jiro laakiin waa dareemi kartaa sida isku bedelayo jirkaaga ragga iyo dumarkana jir ahaan sida marka hore u sameysanahay waa kala duwannahay soo dad anaga waxa u sameysanahay maadaama aan nahay warshada aadmiga jirkeena wuu kala furfuranaya wuuna kala dadabcaya adan maxay ahaytoonay murqaheena waxa ka yaraanayo elastiga ama elastinka ka yaraanayo soo dad markasta oo da dhasho ama uur yeelato jirka isbedela ku dhacayo marka da dhasho oo isbedel kala ku dhacayo marka canuga nuujinayso isbedel kala ku dhacayo haddana marka dambe uur yeelato dar isbedel kala ku dhacayo saasaad u soconaysaa da walba 4 jeer ayaa isbedelaysa badana gabdhaha Soomaaliyeed yaraanan ku guursanaa hadda ayaa dib dambaa laga iska soo bedelay kuwani reer magaalka ahayo hore dugsiga sare markay ka baxaan waa guursan jireen waaba hadii loo ogolaado inay dugsi sare gasho kuwa kaleetana waxa waa dugsi dhexe qaarkood lagu laqmi jiro waa kuwa reer magaalka ahaba oo iskool la geynayo soo waxa jirta oo dhaqan ahaan jirtay xataa in gabadha iyada oo weli 15 sano da'da lagu qaan gaaray aan gaareen la guursado taas ayadana isbedel dheeri ah ayay ku keenaysaa gabadhiyoon qaan gaarin hadii la guursado waxaas dhan hadda ma raba markaan ku fogaado waxaan rabaa kaliya inaan tusaale yar idinka siiyo oo kooban si iskugu xiran yihiin inaa miisaanka iska dhinto iyo inaa faraxsan tahay miisaanka inaa iska dhinto inay tahay antidepressant in depressionka iyo xanuunada maskaxda oo hadda dumarkeena ku badan inuu miisaan iska dhimisto ay wax weyn ka tarayso
miisaankaaga marka uu kordho waxaa yaraanaya farxadaada sababtu waxay tahay dharkaa kugu yaraanaya qof weyn oo socotaa noqonaysa gurigaan oo guurayaa noqonaysa waa dareemi kartaa miisaankaaga na in dadku ku gartaan inta aad la eg tahay kuma xira inaad isa soo qaawiso oo dhajisa soo gashato iyo inaad xijaab xiran tahay sidan oo kale kuma xira qofka hadduu miisaankiisa isdhimi waa la fahmaa xijaab kasta uu xiran yahay alaara marka laba saameyn ay kugu yeelanaya saameyn waa tan dibadda iyo muuqaaga saameynna waa tan gudaha iyo dhacaanada jirkaaga iyo hawsha jirkaaga dhexdiisa ka socota saameynta gudaha ayaan ku hormaraa waayo tan dibadda ayadaa ka muhiimsan marka oo jirkaaga faadka ku badan yahay ama baruurta ku badan tahay waxaa imaanaysa in baruurtaasi tanqaarka hore gasha iyo tanqaarka dambe gasha loo kala qaybina waxaan ka hadlayo jirka ninka ma aha waa jirka gabadhan ka hadlaa tanqaarka dambe gasha waa dhabarka iyo wixii ka hooseeya waa barida waa cajrada waa kubabka tanqaarka hore gashana waa dhabarka wixii ka sareeya waa caloosha waa feeraha waa naasaha waa qoorta waa madaxa waa wejiga baruurta marka jirka qaybta hoose gasha ma aha baruur keenta cudur baruur cudur keenta ma aha sababtuna waxa ay tahay meelaha ay gelayso organiska muhiimka ahaa ee jirka kuma yaalaan dhabarka iyo wixii ka hooseeya waa dhabarkii waa maxay toonay misigtii waa sinihii waa laf maxay toon waa lugdheertii waa lugaabtii waa jilibkii waa qoobabkii waa lugihii laakiin dhabarka wixii ka sareeya baruurta gasho me organiskii jirka muhiimka u ahaa oo dhan ayaa ku jira waa kiliyihii waa beerkii waa wadnihii waa sanbabadee waxaas oo dhan waxay ku jiraan wixii dhabarka ka koreeya marka baruurta kaa gasha dhabarka ka kor ayay tahay inaad ka walwasho kuna dadaasho saad ku dhimi lahayd haddii aad rabto qurux ka sokow inaad caafimaad hesho maxaa dhacaya marka haddii baruur fara badan kaa gasho dhabarka wixii ka koreeya baruur fara badan dhabarka wixii ka koreeya hadday kaa gasho waxaa imaanaysa in xayrtii hadba saad u taqaana luuqad ahaan amaba cadiintii in ay isku meegaarto oy isku duuduubto organiskii muhiimka u ahaa jirkaaga keliyihii inay isku duubto xayrtii inay isku gadaanto wadnihii inay isku gadaanto sanbabkii in ay isku gadaanto maxaytoon beerkii halkaasna waxaa dhacaysa in ay oxygenka ka xirto circulationka dhiigga iyo dhiigga wareega inay ka xirto organiskii sidaasna aad ku noqoto qof caafimaadkiisa hooseeyo baruurta ayaa keenta cudurrada ugu faraha badan leh ee aadamiga haleela oo ugu horeeyaan labada xanuun ama saddexda xanuun aan badhaho oo Soomaalida aad u halakeeyay waa kaadi macaanta ama sokorowga qofba soo yaqaan ama macaan waa dhiig karka waa high cholesterolka ama xaydha dhiigga gasha waxa soo dhan baruurta ayaa keenta baruurta maxaa keena qofku baruur iska yeelan maayo si kasta oo sanji u tahay haddii waalidkaa waa weynaa aad waa weynaanayso laakiin haddana qofku baruur iska yeelan maayo oo cunadii qofka uu cunaayay ayaa meesha ku jirta maxaa baruurta keena marka waxaa baruurta keena markaad cunno qaldan cunto ama xaddigii laguugu talagalay ka badan aa cunto jirka cunada la cunaayo waxaa loo xisaabaa ama lagu xisaabaa sida miisaanka sokorta dukaanka markaa gasho kilogram iyo nus kiilo iyo rubac iyo tumin iyo loogu xisaabo jirka waxaa lagu xisaabaa waxa uu cunayo calories ama kj ama calorieska jirka haddii marka aad cunto wixii daily maalin walba aa u baahneed wax ka badan
waxaas ka badan jirku wuxuu qaadanayaa intii oo uga baahnaa, intii kaleetona wuu kaydinayaa. kaydkaas oo gelinayo kaloriskii faraha badnaa ee aad isku daldashay ee ka badnaa wixii jirkaaga u baahnaa ayaa wuxuu noqonayaa xayr meel fadhida oo jirkaaga dhexdiisa standby ku ah. inaan iscaatays idinkaga sheekeeyo waxaa ka muhiimsan inaan idin fahamsiiyo inta aan fahamsanahay. qofka ismana caatay karo, caatoobina maaya haddounan fahmin wuxuu isku caatayaya ee sababtay tahay inuu iscaatayo, iyo hadduu miisaanka iska dhimo siduu noqonayo, miisaanka hadduu ku badan yahay siduu noqonayo. haddaa intaas laysku sheegin macnaheedu waxba kama naasacada hadalka. barnaamijkan markan iska dhin culayska adigoo aamino la socda ama adigoo aamino la jira, ingiriisigana noqonayo lose weight with Aamina. waxaa ugu talagalnay in 30 bisha Ramadaan oo shalay kaliya na dhaaftay oo maanta ay tahay maalintii labaad inaan ka faa'iideysano oo gabar walbaaba ay dhowr kilogram iska rido. barnaamijkan waxa daama uu yahay video muuqaalkii ugu horeeyay muuqaalkan oo idin soo gudbinayo ma aha barnaamij lacag ah, laakiin qofka ka qayb qaadanaya waa in uu la yimaadaa waxyaabaha laga rabo uunan qayaano samaynin. aniga cidisanka igama haysato oo ima qasbin. gabar ayaa jirtay saaka aan is afdhaafna wayna maqlaysaa because markii horeba meelahan iga soo raacday. gabadhaas waxaan isku afdhaafnay akhlaaqiyaadkeeda oo aan wanaagsanayn, maadaama aniga marka aadan lacag isiinaynina, lacag aniguna aana idin weydiisanin, idinkuna midaad ii garanaysaan aanay jirin, waxaan codsanayaa in akhlaaqda la ilaaliyo qofkii barnaamijkan ka qayb qaadanayo, waayo aniga cid isoo qasabtay ma jirto. في سبيل الله يا وحا أسميسنا وانا وحا أنيقا تجابيه حتى كفر أحسن تهد كقيب قاده حتى هذا كفر أحسنين واسك هري دب مجرى دقنين تلابعد أن بحنا وحاواي إن وحي أن كتلي أون إنات سميسو أو آدم وحي ليريا جاب كاغا كالسو بحن هذا ربطنا برنامج كان كقيب قاده دقنين تصدحاد وحاواي برنامج كان هكا قيب قادنين هذا أور لاده iyo hadaad nuujinayso labadaba, hadaad macaan qabto iyo dhiikar taqtarkaaga u tag kala tasho. kollayba intaan anigu kuu sheegayo anigu dhakhtar mihi nutritionistana ma ihi oo qof dadka nafaqada ka shaqeeya ma ihi saas, laakiin kollay intaan kuu sheego unbuu kuu sheegay iyo intuu dhakhtarku weligii noo sheegi jiray ka badan kuu sheegi maayo. laakiin way wanaagsan tahay haddaad kali xanuun qabto, haddii kaliyaha lagaa dhaqo, haddii daawo oo aad u badan ay kugu socoto, waxaasoo dhan barnaamijka ha ka qayb qaadan iska daa. haddaad uur leedahay ha ka qayb qaadan, haddaad ilmo nuujinaysana ha ka qayb qaadan. laakiin haddii calooshaadu bannaan tahay oo uurka iyo adhaxda aad caruur ku sidin waa ka qayb qaadan kartaa. alright, waxaan u noqonayaa marka qodobkii barnaamijka uu ku saabsanaa oo ah xiriirka ka dhexeeya farxadda iyo weight loss-ka amaba iska dhimista miisaanka. miisaanka qofka wuxuu jirka ku keenaa inuu dhacaano qaldan qofka oo jirka maskaxda soo deyso. maskaxda ayaa horta dhacaanada jirka lagu maamulo dhan maskaxda ka imaadaan. dhacaanadaas waxaa isugu jira dhacaano farxad leh iyo dhacaano murugo leh. dhacaanada farxadda leh marka maskaxdu ay jirkaaga ku soo deyso waad farxaysaa, self esteemkaaga ama isku kalsoonaantaada ayaa kor u kacaya. dhacaamada murugada leh marka ay maskaxdu jirka ku daysana waad murugoonaysaa, self esteemkaaga ama isku kalsoonaantaadana hoos bay u dhacaysaa, waad isku dhex dumaysaa. maadaama ay intaas tahay sidaas tahay, markii aad noqoto qof miisaankiisu isdhimay waxaa kordhaya farxadaada, waad qurux badnaanaysaa. quruxduna tan dadku kuu sheegaan maahe waa taad adigu markaad muraayada isku fiiriso aad iska garato. quruxdu ma aha wejiga oo kaliya ee waa jirkaaga oo dhan. dumarkana
kaniinkooda farxadda waa quruxdooda, waa midabkooda, waa jirkooda suu samaysan yahay, waa kolbatura waxa talyaaniga lagu yiraahdo ama body in structure ingiriisiga lagu yiraahdo. okay, haddaba maxaa dhacaya marka haddii aad culays badan jirkaaga u yeesho? waxaa imaanaysa dharku xataa wuxuu jecel yahay qofka miisaanka iska dhima ku qurux badan dharka. cambuurka heblaaya wadato haddaad suuqa ka soo gadato oo lacag fara badan ku soo gadato, laakiin aad u weyn tahay oo cambuurkina number weyn leeyahay, number weyn ka soo gadato, heblaaya oo numberkaaga number ka yar qaadata iyo adiga isku si uma muuqanaysiin cambuurkii oo isku mid ah. farxadda marka waxaa keenaya muuqaaga. marka arag adigu isku qanacdo ka bacdi dadka kale isku kugu qancaya. marka adigu gabar xijaabi oo xijaab xiran noqo ama gabar kale noqo ama tuguntiina xiran noqo waxaa doonta adigu ahaaw, laakiin miisaankaaga marka uu yar yahay ayaad ka qurux badan tahay markuu miisaankaagu weyn yahay. markii aad qurux badan tahana dhacaanada jirkaaga kuwa farxadda leh ayaa jirka maskaxda soo daynaysa oo jirka ku daynaysa because waa faraxsan tahay. markaad weyn tahana dhacaanada murugada leh ayay ku daynaysaa jirka. marka dhacaanada murugada leh ee maskaxda soo dayso oo jirka ku daysana waxaa imaanaysa inaad murugooto, murugadaasna ay ku baddo xataa in aad qaaddo xanuunada dhimirka qaarkood. kow, labo, cayilku caafimaadkana waa ku xun yahay, quruxda jirkana waxbuu u dhimaa. intaas ka sokow wuxuu ku xun yahay oo kaleeto inaadan howlo badan qabsan karin. hooyana waa tahay, adduunna waa lagu soo dhigay inaa ilmo korsataa rabtaa ood ka daba orodo. dadaal fara badanaa dunidu samaysay, dawooyinaa la soo saaray, shaksaa la sameeyey amaba meal replacement wax la dhahayo oo lagu bedasho cunnada. waxaasoo dhanaa la sameeyey. maalin kalaan ka hadli doonaa intii nooc oo shakis ah amaba dawo amaba kaniini ha wadato amaba meal replacement ha wadato ee aan anigu soo maray, anigu aamina ahaa. nadiifa waa ku salaama macaan, salaamullaahi xabiibti, mulki adna sidoo kale kulli waadi salaama. anigu soo mara maalin baa idin kaga sheekayn doonaa anoo gabdhaha walaalaheeya ee businesska ka samaynaya amaba ku jira ama hadda isticmaalayana aan waxba u dhimi doonin, laakiin experience-gayga ayaa idin la wadaagi doonaa. waxaasoo dhan waa soo maray. markii dambe marka maxaan maray? markii dambe waxay noqotay sidii koroonahu iigu dhacay. waa dadka joogtada iila socda waa iga warqabaan. dhammaadkii bishii March, bishii April dhammaadkeedii ee sanadkii hore, waa bishan bisheedii ee sanadkii hore, aniga waxaa ugu dhacay coronavirus. coronavirus markii ugu dhacay, sidii markaas ma isticmaalin aniga wax product ah, Herbalife ha ahaato, Juice Plus ha ahaato, waxaas dhan ma isticmaalin. waxaas wixii ka horeeya isticmaali jiray oo aan marna joojinay marna isticmaalay. marka taas barnaamijyo kale ku soo qaadan doonaa. laakiin hadda maalin walba week walba 2 pound ilaa iyo 3 pound ayaa iga dhacda. 2 pounds ilaa 3 pounds ayaa iga dhacda. hadda waadna ogtihiin oo haddii wax idin kaga bilaaban yihiin miisaankaaga iyo waxaa isla socda dhirirkaaga. waxaa isla socda dhirirkaaga, miisaankaaga iyo tirada ama xaddiga baruurta ama subaga fatska oo jirkaaga ku jiro. waxaasoo dhan qaaba loo xisaabay leeyihiin. qofkaan garanayn waa ku imaan doonaa. adigu marka ama product isticmaal amaba ha isticmaalin, laakiin waajibku waxa waaye in aad saad nolol caafimaad leh oo farxad leh ugu noolaato. gabar yahay walaashay oo Soomaaliyeed inaa miisaanka iska dhinto. taladan waxay kaaga timid qof weynaa jirtay oo size qaada jirtay. saysaska UK iyo Mareykanka
iyo Australia iyo internationalka kaleeto way kala duwan yihiin qaabka size-ka loo isticmaalo. Size-ka UK ayaan 30 ka qaada jira. waa dareemi kartaan inta uu yahay. anoo ilmo dhalaay oo marna uur yeelanaay marna waxayna shaqo joogtaa laga rabo naag 30 size ka qaadaysa waliba qaybtayda dhar anigu dadka jirkooda kala soocayeen qaybta kore qaybta hoose taa isma laani dadka qaybaha kore u dhuuban ku jira oo qaybta hoose u balaaran hada qaybta hoose 30 mugaan ka qaatay qaybta korna 26 ka qaatay xayaa la meeshaas sadacadha idin la hada bal meesha maxaa yaala dawaa gurigaan oo socda un baan ahaa asa tareenka hadaan raaco anoo yaxyaxsanaan raaca hadaan ka dagan anoo yaxyaxsanaan ka dagan jidka hadaan marna anoo yaxyaxsanaan mara ma raba inaan shactirado idin kugu daro hadaa idin kugu daro soonka inuu naga furmo ma rabo because waa soomanahay Soomaa dadka qaara afur laakiin waa soomanahay waxa isoo martay anoo jika ciriiriya dagan macnaha waxaan ka wadaa maxaa la dhahaa kitchen cake ama jikadayda jikooyinkan Yurub waa taqa ciriiriya anoo degan oo salka damba ku shiday bahalka aqmaraan maaga asan kuukarkiyaan baridiya kuukarka daabata asan shida baridiya kaligaad shida kuukarka anama ogiba inuu shidan yahay ma ogi waana gaaskiyo waxaan arkaa dhahay gaas la soo ura argaaskan xoolaha inta ka soo urowhaya boilerka ma baqay hebelo ma baqay hadaan imid jikadiyaaba shida gaaskiya shidan dabki holacna male gaaski le baalki la wareejay aniga baridayda ku shida ilaahay baa idin ku dhashay intaas idin ma dhaafi kare ramadaana lagu jiraaye qofkaas ma nool yahay qofka saas ahaa ayaan ah haddana hoos ayaa 18 ka ah meeqayga go'da 30 qofkii size 30 ka qaadanaysa oo hadda hoosta qaarka dambe oo u ballaareed ka ah 18 qaarka horena 16 haday gashato falaq ku yahay 14 haday gashato oo la eg yahay qofkaas soo muu dadaalin iska kay cafiya yaqaan walaalayaati waa taqaanaa runta la inaan sheego leeg aan uga dan leeyahay waxaan rabaa kaliya inaan run idin sheego ma raba inaan been idin sheego inkastoo la soomaya haddana waa idinka ilaaliyo weliba waa iscelceliyo waayaaba bareega isku haayaaba wax badan idin ma sheego karo ya jidka markaan maraayo ilaa dad dhul gaalaan ku noolahay waxaan u maleeyaa halaha tareenka ila saaran iyo halaha jidka socdo inay dabadayda dayayaan u qabi jir hada kala ma jecli because ummadiyaan la mid ah waxa iga waaweynaan ba agmara hadda. So I don't care. Yeah, I don't care. How many other women? Yeah, how many other women are 18 size 18 ka hoos? How many other women are size 14 kor ka? Kuwa sana mid ah. So I should not care. Yeah. Qofku waxa soo martaan ahay. Because cunugan nuuja uran leh hadan halkalaan dhala halkalaan nuuja uran leh mushkilad kale iyo nolosha kale adduunka waa ugu adagtaa saddex cunuga baa afaayad loo wada xiraayeen guriga jooga qofkaas soo xasuusa Ilaahay baa idinku dhaarshay so maanta la jooga marka inaan idin sheego what I have gone through wixii aan soo maray sa uga faa'iideystaan maanta la jooga inaan idin sheego aan walaxaan ogahay laba dhima maayaba horaalada kuugu sheegay nolol ha ahaato ama wax kale ha ahaatee wax aan ogahay ani maba la dhimahayaba marka gabdhow islaantan intay nooshahay ka faa'iideysta anu takhtar mihi nafaqista mihi qofka nafaqada ka shaqeeya mihi laakiin waxaan ahay waaya arag nool ayaan ahay waxaan ahay living witness living expert yaan ahay expert with experience yaan ahay khibradyahan ya khibrad la noolaanahay intaas un baa idin sheegay oonan idinka xisday ya marka afka la furo insha Allah ayaan idin tusin doonaa jeaniskii ugu dambeeyay oo aan 24 ahay aan gasho doonaa waxa arki doontiin inta oo la eg yahay oo iga waxaysan aniga oo jirkaygana asturaaya ayaa idin tusi doonaa idin soo sawiri doonaa inta maxay toona iga waxaysan
qaatay afar waay anta man sideed hadda jooga meeqa u dhaxays wax badan u dhaxay ya habartaada ka tahay gashasho ma leh jiiliskaas waa iyaala ma kasto waxaan ku xasuusta inta gashto isku bagbagaa arma intaan tago muraayada asaas dhaha haddana ma gaajoodo tan kuugu daran waxa waay haddana ma gaajoodo macluul uma dhinto laakiin cuntadiyaan fahma aniga iyo cuntadiyaan saaxiib noqonay waxaan saaxiib ku noqonay awal waxa waaye hid aan siga ciyaara jirnay hid aan sig ya dhuumashoba anaga cuntada ciyaara jirnay midaan idin sheega hadda ka horna waa idin sheega soddon sano qofka hadduu gaaro bal warkayga dhagaysta nin aha ama naag aha soddon sano haddaa gaartid waa kaaga dhammaata inaad wax kasta cunto ma cuni kartid wax kasta hilibka cadiintaa kaan juq haddana xalwada kaan juq buskudkana kaan juq kaygana kaan juq jalaatada ice creamkana kaan juq maya haddana maxay ahato cambuulada kaan juq ma jirto waxaas ma jiraan mar soddon sano haddaa gaarta forget about inaad wax kasta cunto iska iloow aabbaay ama eebow way iska iloobaysaa waxa nimankeena dhan calool ahaana u wada yeelay ya ninkii wajiga ka qurxoon oo wajigiisa haddaa arad maasha allah wallahi billah because Somali falxun ma bijiraba we all have this romantic faces ma jiro Somali falxun rag dumar wax falxun ma jiro wajiga ka qurxoon haddaad wajiga hoos ugu dogto waaba kanaaba waaba 9 bilood oo uura u qaba 9 bilood 8 bilood 7 bilood oo uura nimankii dhanba uuray qabaan sababta ma taqaan waa cuntada waa cunnada gabarta uurka hadday uur yeelato xataa ama ay caloosheeda xeer garto wala xikuma marsootayba haysaa iyada cunugayba dhashaaye adi cunug ma dhashaa way xamil u tahay ya waay sabab wallaahi oo bilaa waxaad ogaanaysaa nolosha adduunka waa isku xiran tahay farxadda waa isku xiran tahay murugaduna waa isku xiran tahay muruga markay kuu bilaabato waa sii hoos le usii degay ilaa aad wax ka bedasho noloshaada farxadda markay kuu bilaabato kora u socone ilaa aad wax adiga ku soo celiyo ee kugu dhacaan waa inaa iska ilaashataa marka naftaada inayna farxadaada laga waxaynan marka haddaad cuntada iyo adiga saaxiib noqonina oo aadan isfahmina oo dhuumashowga ka bixina wallaahi oo bilaahi oo tallaahi xanuun unbaad ka qaadaysaa kama qaadaysid wax kale kama qaadaysid ya الله أفرنا وكريو هاي وأنا إذا لهت له هاي وحرك بعد سوق بقبينا مركا قرابة lose weight with آمنة أما بميزان كإسكندن أديك آمنة اللجرة just صدق بشهر رمضان وصدق بشهر رمضان وحرب مركا قبله الصحيح وأنا سوقري هرت ماشي أقول هرس قال سعين السين وحواي ماشي مركا هركو أركتين فرنتين WhatsAppkii message-kii aan ballan qaada uu shaqeyn waayay sababtu waxay tahay gabdhaha isqoray konton ay ahaayeen kontonkii aan ku xiray kontonkii hal gabaraa dhiman 49 waaye hal gabaraa dhiman halkaas gabarna waa booski gabadhii sida xun ila hadasho on ka tuura meesha booskeedii ayaa banaan bas okay gabadhaas booskeeda ayaan qof kale gelin doonaa daadsid waa dhamaata konton qof ka badan ma coach garayn karo saas ku xiran tahay marka waxaa loo baahan yahay in WhatsApp-ki waa shaqayn waayo bari dhexdaas markii WhatsApp-ka lagu yaacay oo kanada waxay kana aan waxna hubka nuclear-ka maan haysanaa moog waxna laga dhacaa ma qaane gabdhihii qaar ka guureen marka gabdhihii WhatsApp ma wada haystaan saas la ajligeed fariinta WhatsApp-ka xataa haddaan soo diro ma wada gaarayso ani marka dib aan iskugu noqday inaan saan video ahaan idinku soo gaarsiiyo iyo qoraalada inaad kala socotaan Snapchat Facebook iyo YouTube iyo aad Facebook live iyo YouTube-na aad kala socotaan videoyada iyo Instagram saasa go'aansaday because social media caamakaasa ah konton ka badan ayaan fiirsanaysa laakiin kontonkan waxaan ka rabaa kontonka isqortay waa is yaqaanaan waxaa idinka rabaa this week waa is cabiraysan miisaana is saaraysan waxaa meel ku qoraysan how many kilogram aad tahay ama stone hadba meesha aad joogto meel ku qoraysan biiga dambe ayaa haddana is cabiri doontiin si aad u ogaatiin meeqa bounds ayaa idinka dhacday
waa week kasto not maalin kasto weekii dhan hal mar meesha doonto ka door weekii hal mar iscabir weekii hal mar iscabir weekii hal mar iscabir haddana maalinta iscabirta maalinteedii kale weega kale iscabir meeshaas waxaa ku arkaya waxaaga cunada ku soo hartay cunada iyo qoraalo yar yar waxaan soo gelinayaa waxaagaan soo gelin because hadda ramadaan waaye caqabada yar yar iska jiro idoo ramadaan lagu jiro waqti dheer cunto ma ka sheekay karo anna waa soomana idinka waa soomantiin suurtagal ma aha sidaas laajiligeed cunada aniga hadda waa karsadaa taa karsado oo idin soo sawiraayo ma aha cunto aan google ka soo bixiyo ma taa aniga kariyo waay aniga taa nafteyda u karsado waay mid kale iska ilaawa idinka iyo ilmihiina hadaa rabtaan ana miisaanka iska dhinta inaa isku cunto noqotin iska ilaawa hada afran karinayaa keygana waa karsanaa koodana waa u karanaa laakiin isku cunto ma nihin ma noqon karno isku cunto ya anina hilib ifuula ma raba ya kana qaar xayaasi waayo doo hilib iska fuula xataa waa caadi soo isku cunto ma noqon kartiin marka cunada aan idin soo sawiraayo on Snapchat iyo Facebook soo gelinayo macnaheedu waxa waaye tii aniga karsado oo weight loss ku sameeynayo waaye saasoo ogaada intaas ka badan ma wada hadla karno afurka dhameystira kariskiisa dhameystira qayra isku ognahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muuqaalkan waxaan gelinaa YouTube cusubaan gelinaa maaha YouTube-kayga hore because wixiina isku qasmaan ma rabo lose weight with Amina YouTube kala jiro oo aan qabo kaasaan gelinaa kaasoo soo like garaynaysiin oo soo subscribe garaynaysiin Facebookna waa laga saarayaa because tuuga iska badan ka baxsanaysa hadaba waa ka saaraya Facebook marka saas ogaada insha Allah halkaas kala soconaysaan Snapchat-ka iyo Facebook iyo Instagram-ka iyo YouTube-ka afartaas platform social media platform aan isticmaali doona salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ballanteena waxa waaye in maxay ahaatona ismiisantaan weegan u horeeya si weega dambe ay ismiisantaan oo aragtaan wixii aad lus gareyseen wixii recipe ah ama maxay to cunadii la cunaayo ahna qoraaladaas Snapchat-ka iyo soo gelinaa waana mahadsantiin thank you very much salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu